haweeney ayaa markasta waxay aadi jirtay guriga saaxiibadeed, iyaduna way u imaan jirtay. ninkeedii ayaa dhibsaday. markasta uu shaqada ka yimaado, wuxuu arkaa saaxiibadeed oo la joogta ama iyada oo guriga ka maqan. wuxuu isku dayay inuu kala hadlo, laakiin waxay ugu jawaabtay, waa gabadha keliya ee saaxiibka ila ah, marka haddii aan aado ama ay ii timaado maxaa ku jaban. odaygii waxaa ka dhammaaday dulqaadkii. wuu fikiray, wuxuuna gaaray go'aan. maalin ayuu isagoo ka yimid safar gaaban, wuxuu soo galay guriga. wuxuu u yeeray xaaskiisii, wuxuuna ku yidhi, bacdan adigaa iska leh, waxaan kuu soo gaday dhar iyo kabo. bacdan kalena waxaa ku jira dhar qaali ah iyo dahab, waa hadiyad aan u soo iibiyey gabadhii saaxiibadaada ahayd. xaaskii waxay ku dhufatay qaylo, maheerkaas ayaad la maraysaa, waa maxay hadiyadda qaaliga ayaad u soo iibisay naagta? malaha hoos bay kula soo xiriiri jirtay, waa haddii ay gurigayga mar damba timaaddo iyo wixii la mida ayay tidhi. saaxiibteedii oo warmooga ayaa guriga soo gashay, waxayna haweenaydii xaaska ahayd ka orgeysay buuq iyo dagaal. waxayna ku tidhi, haddii aad gurigayga mar damba timaaddo, wallaahi wixii kugu dhaca adiga ayaa mas-uul ka ah, aniguna weligay kuu iman maayo. gabadhii saaxiibteeda ahayd, iyada oo yaaban ayay guriga orod uga baxday. haweenaydiina markaa wixii ka dambeeyey socod damba may samayn. odaygiina gadaal buu ka qoslayay. haddii aad markuu ugu horeysay fadlan beedkayga follow soo dheh, muuqaalkan aad daawanaysidna like saar, siina share garay, saaxiibadaada la wadaag.